بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بان ويديساننا تبارك وتعالى في مستهل هذه الكلمة إنه ينوافجيه وحي خيره wixii zalal iyo simbirraxaan inuu naga ilaaliyo camalkanagana inuu ilaahay ka dhigo mid isaga dartii loola jeedo kelimadan sidii hore loo ilaamiyay cinwaankeedu wax weeye الاختطافات أسبابها وسبل الوقاية منها أفضوبية سببها كان iyo siyaabaha la isaga ilaalin karo ama jidadka la isaga ilaalin karay waxay calaaqo leedahay kelimadan ama muxaadaradani arrimaha waayahan dambe hadalhayntoodu aadka u badan tahay oo ah afduubka dadka loo geysto gaar ahaan dalkan aan joogno gaar ahaan magaalada Nairobi iyo magaalooyinka la midka ah oo waayahan aad loo hadalhayay warbaahinta iyo shaarica mujtamaca guud ahaan taasoo abuurtay agagax badan iyo xaalad cabsi leh dad badan ku abuurtay ilaa heer caruurihiiba iskuullada inay tagaan goobii waxbarashada aadaan waalidiin badan ay ka reebeen cabsi badan bay abuurtay marka waxaan jeclahay marka inaan kelimadan daahirada bal asbaabta keenta guud ahaan wax ka taabanno sidee la isaga ilaalin karaya waxaan ka hormaraynaa horta inaan muujinno ahmiyadda ay leedahay iyo mudnaanta nabadgelyadu ay u leedahay bulshooyinka iyo mujtamacaadkaasi ama muslim ha ahaadeen ama muslim yaysan ahaan nolosha bini aadamka lafdhabar waxaa u ah asaasna u ah amniga iyo nabadgelyada ilaahay nicamka bini aadamka uu siiyo kuwa ugu qaalisan bayna ka mid tahay ammaanka iyo istiqraarka iyo xasiloonida tumaaniinada inay dadku u nabadgalaan naftooda xoolahooda cirdigooda diintooda deegaankooda nolosha asaasiyaadkeeday ka mid tahay qur-aanka kariimka meelo ka mida ilaahay waa ku tilmaamay tabaaraka watacaala oo ay ka mid tahay in allah tabaaraka watacaala kaba hormariyeyba arsaaqda bimacnaa bini aadamku ma jiri karo hadduu cunto iyo cabitaan waayo risiq hadduu waayo ma jiri karo saa ay tahay haddana arsaaqda waxaa laga hormariyey iyo cunitaanka iyo cabitaanka amnigaa laga hormariyey qur-aanka meelo ka mid a waxaa ka mid a meelaha arrintaas alla ku tilmaamay markuu ilaahay ka warramayey fii suurati albaqara qisadii nebiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam iyo ducadiisii uu u ducaynayay magaalada maka iyo dadkeeda الله وحده تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر إبراهيم وحده الرب يوم بلد كان واحد كدكتا مد آمنة مدت كيسو أمان كهلان وبلد الحرام ومكة وحكدم بيسيي ehelkiisana waxaad ku irsaaqdaa midhaha xaggooda yalaa dalaga soo baxa ilaahu dadka meeshan degan ka irsaaq gaar ahaan dadka allah iyo maalinta aakhiro rumaysan
marka u fiirsan nabiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam ammaanka ayuu ka hormariyey arsaaqda isla aayad kaleo fii suurati alqasas ku jirta alle waa ku tilmaamay macnaha isaga oo wuxuu rabbi yidhi tabaaraka watacaala waqaaluu in nattabici اlhudaa macaka nutakhaطaf min ardina awalam numakin lahum xarama aamina yujbى ilayhi hamaraatu kuli shayin risqa min laduna walaakina akarahum laa yaclamuun waxay yidhaahdeen maxamedow haddaad hanuunka aada la timid ku raacno reema ka waay nutakhaطaf min ardina dhulkanagaa nalala kala dafi waa nala kala dafi markaasaa ilaahay u jawaabo wuxuu yidhi awalam numakin lahum xaraman aaminan soo maanaan makaninin u gacan gelinin maanaan dejinin xaram aamin ah way ammaan ku haystaan oo isaga sababtiisa ay naftoodii xoolahoodii ku nabadgelayaan markaasaa alla wuxuu yihi yujbaa ilayhi hamaraatu kulli shayin waa arsaaqdii waay adduunka wixii dalag iyo midho ka baxoo dhanna la keeno oo loo soo qaado marka ammaankaa la hormariyey arsaaqdaa laga dambeysay alimaam ibnu kaiir caleyh raxmat ullah markuu masalada ka hadlahay aayadahaas uu fasirayay wuxuu sheegay sababta keentay in qur-aanku uu hormariyo ammaanka uu ka hormariyay amniga uu ka hormariyay arsaaqda wuxuu leeyahay fabada'a biاlamni qabla اrisqi lisababeyn wuxuu ammaanka ugu bilaabay oo risiqa uga hormariyey laba sababood sababta koobaadi waxa weeye lianna istitbaaba alamni sababun lirisqi lianna ammaanku inuu sugnaado xasilo sabab waxay u tahay in risiqa la helo oo markii ammaan la helo maxaa dhacaya faidaa shaaca alamnu wastataba daraba annaasu fi اlardi markii ammaan la helo oo arrintu xasisho oo cabsidu baxdo dadku marka way safrayaan waa la tijaaraysanayaa arsaaqdii baa la keenayaa marka waxa weeye in la safro oo ganacsi la keeno oo beerihii baxaan oo arsaaqda la keeno oo kasabkaasi yimaado waxaa sabab u ah ammaankaa sabab u ah saas daraaddeed ammaanku isagiiyaa sababu arsaaqdii sabab u ah saas waa loo hormariyey waa midda koobaad midda labaad wuxuu yidhi waliannahu laa yatiibu طacaamu walaa yuntafacu binicmati risqin idaa fuqida alamnu sababta labaad ee loo hormariyey ammaanka loo hormariyey waxa weeye lianna cunta macaanaan mayso risqna lagu intifaaci maayo markii amniga la waayo ammaanka haddii la waayo cunta kuu dhadhami mayso cabitaanna macaansan mayso risq nicmadiisuna intifaacsan mayse faman min annaasi axaata bihi اlkhawfu min kuli makaani watabadada اlamnu min xayaatihi uma wajada ladata bimashruubin aw matcuum buu yihi yaa waaye ruuxa dadka ka mid ah oo intay cabsi gashay oo nabadgelyadii meesha ka baxday noloshiisa ka baxday oo cabsidu hareeraysay asagoo xaaladdaa ku sugan haddana cabitaan iyo cunto macaansaday yaa waaye ma kuu dhadhamayso haddaad baqayso cuntona kuu dhamid cabitaanna kuu dhadhami maayo markaasaa wuxuu bixiyey ishkaal aayad qur-aanka ka mid ah oo aayadahan hadda amniga hormarisay iyadu ka duwanoo iyadu hormarisay risqiga hormarisay waa aayadee suuratu ilaaf aladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf iyadu waxay hormarisay allihii ka ammaan yeelay gaajada cabsidana ka aamin yeelay aladii acamahum quudiyey min juucin gaajo xaggeed wa aamanahum min khawf marka ammaankiibay dib ka dhigtay risqii bay hormarisay taasuu ka jawaabay marka waxuu leeyahay jawaabtu waxa weeye suuraddaasi waxaa lagula hadlayay gaalada wuxuu yihi wacinda mukhaaطabati haؤulaaءi yaxsunu اlbadءu biاlqaliili qabla اlkaiiri wabiاlyasiiri qabla اlcadiim marka gaalada lala hadlayana waxaa fiican buu yihi hadalkooda in inta yar looga bilaabo in weyn intaan la gaadhin
shayga fudud in looga bilaabo ka weyn intaan la gaadhin sidaas daraadeed maadaama gaalo la hadlay usluubka gaalada loola hadlaa saasa buu leeyahay almuhim aayadahaasi waxay tilmaamayaan ahamiyadda ay leedahay ammaanka iyo nabadgelyadu ay u leedahay mujtamacaadka waxaa isaguna tilmaamaya xadiidka nebiga sal alla alay wasalam bukhaari fi ladab almufrad iyo tirmidi ibn maaja soo saareen culimada qaarkood taxsiininayaan nebigu leh sal alla alay wasalam man asbaxa minkum mucaafa fi jasadihi aaminan fi sirbihi cinda quutu yowmihi fakaannama xiizat lahu dunya bixadaafiiriha ruuxii waa bariista asagoo oo jidhkiisu u fayow yaho caafimaad qaba jamaacada iyo mujtamacuu ku dhex nool yahayna ammaan ku haysta maalinkaa wuxuu quudan lahaa iyo cuntadiisana haystaa adduunkii oo dhan meeluu jirayba dhammaantii in loo ururiyey baad moodaa yacni wax ka maqani ma jiro dad caafimaadna haysato quudkaagana haysato ammaanna haysato nolosha daruuriyaadkeedu waa intaa marka diinta laga tago adduunyada waa intaa waay marka ammaanku wuxuu ka mid yahay asaasiyaadka nolosha la isku waafaqsan yahay mar kale qur-aanka kariimku wuxuu isku xidhay oo isku lamaaniyey bayna alamni waraqad alcaysh waxaa kaloo isku lamaaniyey bayna alkhawfi waljuuc gaajada iyo faqriga iyo baahida iyo nabadgelyo daradu way isleeyihiin dheregta iyo barwaaqada iyo nabadgelyaduna way isleeyihiin sidaa waxaa tilmaamaya aayadda allah tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamay fi suurati الnaxli wadaraba allahu maala qaryata kanat aaminata muطmaئinaة yaأtiiha risquha ragada min kuli makan fakafarat biancumi اllah faadaaqaha allahu libaasa aljuuci wاlkhawfi bima kaanuu yasnacuun degmuu ilaahay ka sheekeeyey tusaaluu ku bixiyey waxay haysatay ammaan way xasiloonayd risqi waasicoo meel kasta uga imaanayana way haysatay u fiirso ammaanna way haysatay risq waasicana way haysatay ilaahay nicmooyinkiisii bay ku kufriday markaasaa ammaankiina waxaa looga dhigay cabsi baa loogu bedelay risqi waasac ah iyo noloshii wanaagsanaydna waxaa loogu bedelay gaaja loogu bedelay marka gaajada iyo faqriga iyo baahida iyo nolol xumada iyo ammaan xumaduna way isleeyihiin ammaanka iyo nolosha wanaagsan iyo risqa waasacana way isleeyihiin saasay isugu lamaansan yihiin leanna meeshii laga waayo ammaan laga waayo nololi ma taallo waayo taariikhda markii dib loo raacana xadaaraadka iyo bini aadamka ilbaxnimadiisa iyo noloshiisu waxay hormartaa markii ammaan la helo istiqraar amniya markuu dhaco oo mujtamacaadku iyo afraaddu iyo umamku ay xasilaan markaasay intaaj yeeshaan wax soo saar yeeshaan markaasay hormariyaan markaasay muxuu ahay nolosha qaybaheeda kale hormartaa sidaas way macnaha waa masalo laysla ogol yahay saas daraaddeed alamnu min ahami aldaruuriyaati اlinsaaniya ama adaruuraat اlinsaaniya bini aadanka waxyaalaha uusan ka maarmin asaasiyaadka ugu muhiimsanee nambarka koobaad soo gelaya waxaa ka mid a muxuu ahay ammaanka ka mid mar kale qur-aanka kariimka ah cajaa'ibtiisay ka mid tahay wuxuuba ku lamaaniyeyba ammaanka towxiidkuba ku lamaaniyeyba towxiidku soo diinta asaaskeedii ma aha towxiidkii iyo ammaankii baa mar kale laisku lamaaniyey iyadana nebiyullaahi ibraahim ducadiisii fii suurati ibraahim markuu ducaynayey waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal hada albalada aamina wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam nebiyullahi ibraahim baa ducaynaya rabbiyow beledkan waxaad ka dhigtaa mid aamin ah aniga iyo caruurtaydana waxaad naga fogeysaa inaan sanamyada caabudno soo maa sanamyada inaan caabudno naga foge shirkiga naga foge waay oo shirkigo laga fogada soo towxiidkii maaha towxiidkii iyo wuxuu isku lamaaniyey iyo ammaankii meesha uu diinteenna kaga jiraad garan kartaan marka inaysan meel dhow ahayn
waxyaalo fara badan oo axkaamta shareecada ka mida markay amniga isqabtaan axkaamta shareecada ammaanka isqabteen la iswaafajin kari waayay waa looga tagay amniga dartii baa looga tagay si aan amniga khalkhal u galin طيب xadiidkii baa ka mida isaguna macnaha tilmaamaya tirmidhi soo saaray qeyrkii oo culimada qaar ay leeyihiin waa xasan nabigu sallallahu alayhi wasallam markay bishu dhalato oo bisha arko dhalashadeeda waa kii ku ducaysan jiray allahumma ahillahu alayna bil amni wal iimaan was salaamati wal islaam ilaahu bisha waxa noogu dhalisaa ammaan iyo iimaan Soomaaliyeed iimaanku waa tawxiidkii Soomaa ammaankii iyo iimaankii baa isla markaa يسدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل علماء قار كمذا وحي ليهن يعني وحيالها بني آدم كو أساسيات كنولش صوحها كمذا عافمات كيسا أمان كاكور إليه الإمام الرازي عليه رحمة الله وحليه علماء قار كمذا وحل ويدي الأمن أفضل أم الصحة ما أمان كوناكسن وفضل بدن مس عافماتك markaasaa ninkii culimada la weydiiyay arinka wuxuu ku jawaabay al-amnu afdal amaanka fadli badan marka wuxuu u keensaday daliil xisi ah wuxuu yiri neef ari ah haday lugtu ka jabto haduu lugta ka jabo iyadoo lugta ka jaban ayay dhutinaysaa way iska luudaysaa daaqay raadsanaysaa cuntadii bay raadsanaysaa cabitaankii raadsanaysaa haday xataa muxuu kici weydo way siqi lugta ay ka jabtay uma diidayso inay raadsato daaq iyo risiq raadsato laakiin wuxuu yiri neefkii ariga isagoo fayow oo lug ka jabnayn oo balaayo qabin haddii meel lagu xidho agtiisana yey lagu xidhayay ama waraabo lagu xidho daaqna la hor dhigo wuxuu yiri daaqaasi ma cunayso inta yeyda arkayso sida u didsan tahay yeydan isaga ilaalinayso bay ku geeriyoone cuntadaba fiirin mayso markay lug jabnidii uma diidin inay risiq raadsato laakiin arsaaqdii iyo hortaala cabsida gashay daraadeed ayaa u diiday inay arsaaqda cunto oo daaqa cunto hor yaal cabsida baashan ay ka baxaysaa ka hor istaagtay marka waa wax aadamaha kaliya khaas kuma ahee waa wax noolaha oo dhan ka dhaxeeya intuu baqayo waxba u dhadhami maayaan noloshii uma dhadhamayso ilaahay herkaasay gaarsiinayaan marka waxay tilmaamaysaa ahmiyadda ay leedahay markaas wuxuu keenay xadiidkii haddaan soo marnay man asbaxa minkum aaminan fii sirbihi mucaafa fii jasadihi cindahu quutu yowmi fakaannama xiizat lahu dunya bixadaafiiriha ayib waxaa ka mid ah arrimaha tilmaamaya diinteenna iyo amniga meesha ay dhigtay iyo ahmiyadda uu leeyahay dadka amniga ku ciyaara waa ammaanka mujtamacaadka iyo xasiloonida ku ciyaara أحكام للدجيو عقوبات كالدجيو هو أدق بشريعة كدجس وأن تريد لهين نحريص لهين وأمد كتب سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا إلى آخر الآية dadkaas dhulka fasaadinaya ilaahay rasuulkiisa la dagaalamaya dhulka fasaadinaya fasaadka ka shaqeynaya alla wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala abaalkoodu waa in la laayo ama la salbiyo la daldalo ama gacmahooda iyo lugahooda si isdhaafa loo gooyo ama dhulka laga masaafuriyo ma tartiiba mise imaamka khiyaar u laho xaaladaha kala dooran kara waa mas'alo khilaaf fiqhi waaye culimadu ku kala duwan yihiin laakiin hadda gelimeyn laakiin muhiimadu wax weeyaan yaani wax loo yaqaan xiraabada xukunka xiraabada loo dajiyay dadka qutaacu turuqda ah tidka jidgooyada sameeya amaanka khalkhal galiya magaalooyin han noqoto baadiye han noqodo dadkii ayba mari laayihiin noloshii kala socon laadahay oo amaanka khalkhal gelinaya loogu talagalay kuwaas ayadu ka hadlaysa
nabiguna sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama fi sahihayn xadiidka Anas uu warinayo dhacdo waxa dhacday waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam niman reer kulli ah ayaa nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam koox way islaameen marka magaalada Madiina yimaadeen way islaameen markii magaalada waxoogaa ay joogeen ayay ku xanuunsadeen magaaladii bay la yar qabsan waayeen waxaan la yiraahdo way ku daltabiyoodeen ama cudur galtiyeed baa ku dhacay yani meesha marka aadan garanaynin caloosha laga qabtay way ku xanuunsadeen markay xanuunsadeen buu nabigu wuxuu amray sallallahu alayhi wasallam fa amarahum an ya'tu ibila sadaqa wuxuu ku yiri geel waxa jira zakaa oo magaalada korkeeda daaqaya geela u taga geela isaga caanihiisana caba kaadidiisana caba yani wala daaweynaya kaadidiisana soo caba caanahana soo caba buu nabigu sallallahu alayhi wasallam maadaama magaalada ku xanuunsateen sidii bay yeeleen way bixeen caanihii iyo kaadidii geela markay ka dhargeen bay caafimaadeen waa ka boodeen markay caafimaadeen ayay marka waxay isku dareen inay diintiina ka baxaan ninkii geel jirka ah ee geela la joogayna ay dilaan geeliina ay dhacaan Soomaali bay ahaayeen talo geel dhacaas geeliina waa qaadeen Soomaali baa geel kala qaad waa baxeen marka nabiga sallallahu alayhi wasallam warkii baa soo gaaray markiiba ciidan buu ka daba diray rag orod badan oo waxa jira salawaatu akwan in la dhihi jiray oo fardaha ka dheereen jiro saxaabada kamid ah adigu ragii iyagoo geeli meel si wada laga daba tagay waa la soo qabtay waa la keenay soo qabtay nabiga loo keenay sallallahu alayhi wasallam geelina waa laga soo dhiciyay nabigu sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu ciqaabay uquubo wuxuu mariyay inta la garanayo nabigu cid uu mariyay aanay jirin qata'a aydiyahum wa arjulahum lugaha iyo gacmuhu ka jaray wa samala a'yunahum indhahana uu ka saaray ruwaayada oo samara masamir kulul buu indhaha kaga gubay thumma lam yahsimhum hatta matu ruuxa marka nabar gaadho ama wax la gaarsiiyo dhiig baxayo waa la gubaa si dhiig u istaago waa la daayay ilaa ay geeriyoodeen meeshii ku dhinteen sababtu wax weeye dad wax layn kaliya ku gaabsaday sida looma ciqaabin dad ridda kaliya ku la yimidna sida looma ciqaabin laakiin mushkiladay sameeyeen wax weeyaan waxay isku dareen inta soo dambi oo ay kamid tahay dil iyo diinta ka baxeen iyo amniga iyo khalkhal galiyeen markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam sida ula dhaqay sidaas daraadeed ahkaamta adag waxa looga dajinayaa halista iyo khatarta ay leedahay in mujtamacaadka iyo bulshooyinka amnigooda la khalkhal galiyo diinteenu meel adag bay ka istaagtay wax lagu khamaari karo ma wax la fududaysan karo ma aha laana wax weey noloshii asaaskeeda waa inta hadaynu marka fahanay waa dhacway amniga iyo amaanka iyo nolosha bini aadamka meesha uu kaga jiro shariicadu gelisay aadamaha kaleetay xataa muxuu ahay aan diinta rumaysanayn way ogyihiin kulligood gaal iyo muslima amaanka sidaas daraadeed hay'adaha dawladaha adduunka horaan iyo haddaba hay'adaha dawladaha ugu kharashka badan loogu dadaal badan yahay waa hay'adaha ka shaqeeya amaanka iyo amniga ka shaqeeya طيب انت كدب موضوعنا هذا نمادنو ويهن waxa aad u soo kordhay sidaan horeyba u sheegnay afduubka iyo shabakado dadka afduuba oo muxuu ahaay madax furasho weydiista mardila siyaabo kala gedisan u dhab haddaan isweydiina asbaabtu maxay tahay way badan tahay laakiin dhowr ka mid aan soo qaadanayna asbaabtu way kala duwan tahay asbaabta waxa ka mid ah asbaab amniya oo waxa dhacaya dadka qaar kood inta la dafo oo la afduubto
raad iyo raq meelay dhigeen in la waayo qaarna meydkooda meel laga soo helo arinta iyada ah muddo ka hor bay dal ku soo korodhay falalka noocaas qaar ka midana waxa lagu eedayaa oo lagu tuunsan yahay laamaha amniga qaar ka mid ah gaar ahaan dadka mutahamka la tuunsan yahay oo ay ahayd sida nidaam ahaan u degan inay mariyaan maxkamad mariyaan oo dambiga ruuxa lagu soo oogo bedelkeeda waa la qaadaya waa la dhuuminaya waa la waayaya ama meydkiisa meel laga soo heli ama marad iyo raqd midna la heli maayo taa way dhacdaa waa mid aad looga qeyliyay oo mas'uuliyiinta iyo gaar ahaan muslimiinta inta badan ku dhacday dhalinyaradooda taa wax badan hadda lagama qaban karo talabaadi wax weeye asbaabta keenta waa asbaab dhaqaale iyo kasab يعني waxa weeya xoolaa laga raadiyaa afduubka oo iyada lafteeda noocyo ku timaada noocyada waxa kamid ah almunakafaat tijaariye inta badan waxay ka dhacdaa ragga ganacsatada waaweyn ganacsi ama fursad ganacsi baa la isku garbinaya markaas la iskharijinaya waxa la isu isticmaalayaa shabakadahan wax dila iyo gaangiskan iyo waxana la isu isticmaalaya inta badan waxay ka dhacdaa tujaarta waaweyn oo mesela fursadaha ama kontradaha dawladdu bixiso ama fursado tijaaro oo ganacsi xasad ba dhex maraya way is arkahayaan kadibna inay iskharijiyaan baa dhici karaysa iskharijinta marka waxa la isu isticmaalayaa si qarsoodi ah way dhacdaa sidaas oo kale dafida noocaas way ku timaadaa oo ujeedo dhaqaale waxaa kamida ujeedooyinka iyo asbaabta keenta waxaa kamida alxusul ala fidya maaliya ruuxan inta la afduubo in markaas laga qaato madax furasho inta badanna waxaa sameeya bulshada qaybaheeda hoose oo baahan baa sameeya yaani ruuxa isleeyihiin waxooga waxbaad ka helaysaan ama isagii bay afduubayaan ama ilmihiisa ama xaaskiisa ay afduubayaan meel bay gashanayaan kadibna waxay leeyihiin dadkaagii la hadal waxa soo bixiya hadii kale waa khaarijinayna waa nidaamkii ninkii la dhihi jiray magafe hawshiisii way jirtaa iyadoo waliba waxay hadda wadankan aad ugu sii xoogaysanayaan arrimaha noocaas oo kale markay gaajadu sii daraato waad ogtihiinoo corona siduu u dhacay dhaqaalihii wadanka wax badan baa burburay soo ma waliba dabaqada hoose iyo bulshada qaybaheeda hoose ee fuqarada ah way u sii nugul yihiin hoos u dhaca dhaqaale wadanka ku dhacay sidaas oo kale markay dhacdo in badan oo dadka kamida si ay nolosha u ta'miiniyaan waxa marka shaytaan ka dhaadhicinaya wax afduubo shabakaad baa sameysmaya sida wax ku raadiya markastoo gaajadu badatana daahiradaasi aad bay u soo baxdaa tayib waxa kale iyada ma soo baxdaa sidoo kale marka doorashadu soo dhowdahay oo kale oo dhaqaale la doonayo in muxuu ahay la sameeyo waxa asbaabta kamida keenta oo muxuu ahay dawaaficda kamida muxuu ahay munaafasaadka siyaasiga oo qolyahan siyaasadda isku hayay siyaasadda ku tartama ayaguna waxay isu dabaraan inay si hoose isu khaarijiyaan way dhacdaa iyadana oo muxuu ahay munaafiska kula tartamay ama ragga wada isaga kuwada muhiimka in si hoose loo khaarijiyo iyadana way dhacdaa asbaab siyaasi way markaas ayaa keenta macnaha waxa kale asbaabta kamida oo keenta waxa loo yaqaano asbaab shahwaaniya يعني afduubka waxa keena asbaab ku saabsan cid ujeedadiisu ay tahay inuu shahwo guto inta badan qaybta waxay ku dhacdaa dumarka daxiyada inta badan dhibanayaasha ku gala waxa kamid dumarka weeyaan macnaha oo waxa dhacaysa in ama gabadhii ama haweeneydii loo afduubto calaashaani in
shahwo laga guto oo la kufsado oo la faraxumeeyo iyaduna way dhacdaa oo markaa laga yaabo in ama sidaa lagu soo daayo markii laga danguto ama ay dhici karayso si aynan sir u bixinin in markaa la khaarijiyo ujeedadu markaa ujeedo maali ama dhaqaalana ma aha siyaasadna ma aha laakiin wax weeyaan uun shahwo ka guda waay ama shahwo ku guda waay ayaduna way dhacdaa tobadana dumarkay ku dhacdaa inahaas waxa la dhihi karaa waa asbaabta keenta dhaqaalaha noqoto madax furasho ha noqoto siyaasad ha noqoto amni ha noqoto asbaabahaas inta badan ayaa sabab u ah qaybta dambe haddaan u nimaadno see la isaga ilaaliyaa jawaabtu wax weeye qodobada soo socota waay qodobadan soo socda kow waxaa asbaabta ugu muhiimsan ah annaga gaar ahaan muslimiinta in aynaan halmaamin adkaarta iyo taxsiinaadka sharciga ah yacni waxaa jira shareecadeennu inoo jidaysay adkaar galbihii iyo subaxdii iyo habeenkii iyo markaad gurigaaga ka baxayso lagu xirsi xidhaa jirta ruuxu markuu sidaa u xirsi xidho xagga min allaahi baa laga ilaalinaya haddii marka xirsi xidhkii aada halmaanto ama aadan garanayninba wax badan oo lagugu xifdin lahaa ama lagugu ilaalin lahaa baad waayeysa sidaas daraaddeed in aan xirsi xidhka laga tegin iyo adkaarta caruurta iyo da-yartana in la baro rag iyo dumarba taa waa qodobka ugu muhiimsan taba labaadi waxa weeye iyo arrinta labaad in la taxadaro oo taxadar la qaato waa ka qur-aanku inoo sheegay mawaatinta cabsida wakhuduu xidrakum taxadarkiina qaata taxadara marka dadku inay wacyi u leeyihiin makhaatirtaasoo kale markay jirto inay taxadarkooda yeeshaan oo meelaha iyo xilliyada waxyaalahani dhacaan in aada la isu ilaaliyo haddii adiga aada isdayacdo oo aada taxadarka ka tagto oo meelo aan munaasib hayn aada gasho adaa markaa isdayacaya gaar ahaan gabdhaheenna dumarkeenna dayac badan baa jira aabayeen la-aan badan baa jirta qaar ka mida waxaad arkaysaa saacado dambe oo habeenka ka mid ah baa waxay marayaan meelo khatar ah xaafado khatar ah wakhtiyo dambey keligood iska socdaan meelo ragguba ka baqayaan indha adaygu raggeenna keliya khaas kuma ah laakiin dumarkeennuna waa indha adagii indha adaygu waa ka mariyey inay tahriibaan oy badaha maraan oo magafo u gacangalaan oo caalamka kale dumarkoodu waxoogaa waa yaro ursan yihin laakiin gabdhaheennu way indha adagyihin marka makhaadirta meelaha ay gelayaan ragga hubaysan baa lafahooda kala baqa xaafado waxaa jira nairobi ku yaalla oo lama galaay ah oo muxuu ahaay isku raran ah oo markaad ragtood dhex maraysa aada baqayso gabadh soomaaliyeed oo qurux badan oo muxuu ahaay xaragoonaysaaba dhex socotaba walaw sidhe gabadha haddii la dafo maxaad kula yaabi marka waxa weeye dayac baa jira xaafadaha ha noqoto xilliyada qaarkood ha noqoto gabdhaheennu waxaynan xasaasiyad ka qabin oo iska raacayaan tagaasi aynan garanaynin wax wada way iska raacayaan biki waxay raacaysaa ooy u raacaysaa meelo fogfogoo dadka ka dhex baxsan nin keliya wata tagsi ayna garanayn bay keligeed fuulaysaa markaasay meel fogu raacaysa soo inuu jiiro la gala maaha yaa ka celinaya saa ay tahay waa gabadh soomaaliyeed oo qurux u dhalatay marka labaadna meeka ab barsatay oo isqurxisay marka saddexaadna iscadrisay oo udgeysa waay soo maa marka in jiiro lala galo soo iyadu sabab ma ah iyadaa sabab u ah raggan ay saaran tahay baabuurka la saaran tahay ama bikibikida la saaran tahay
ورق شهوة هيسواه ورق دك كله مساكين أهو حوله إني كراديان أي صورة قلتها لكن درين كم قبان قبلها أنت بدن درين كم قبان لكن اللي يكر لا يا وركتشو بلا يدنا طفول يسار إسكداي waxaad ku darsataan mujtamaca Kenyaanka ee aan la noolahay in badan oo kamida waxay rumaysan yihiin ruux Soomaaliya markay arkaan inay jeebabka dollar iyo dahab uga buuxo salada qabsada gabdhaha boorsada yarta Soomaarta oo ay ku ritaan waxay ku shalaystaan iyo waxyaalaha yarka iyo kareemiyada ay ku ritaan boorsada waxay rumaysan yihiin dahab ka buuxo marka eedii oo sideedaba muxuu ahay la tuunsan yahay ayay hadana meelaha isdhigaysa Sooma marka kii hadda ka hor ay dhaheen qoliye kamida Soomaalidu Ilaahay ay caabudaan waa midka lacagta sameeyay dhahan midka lacagta sameeyay ay caabudaan baa marka mala ducadii buu Ilaahay inoo aqbalay hadda ka hor waagii ay Soomaalidu soo qaxday oo askartu aad u ereeyn jirtay oo ay dadka dhibi jireen ayaa ruuxa Kenyaanka markuu ku shaxaada wuxuu ku leeyahay iko shida buu ku leeyahay iko shida Sooma iko shida marka Soomaali waa dad war badan waxay yiraahdeen Ilaahu iyagana shidaha u waay annagana shilin hanoo waay marka bala ducadii baa leeyahay aqbalay المهم waxaan ka soo wadaa ujeedadaydu tahay gabdhaha Soomaaliyeedna inay fahmaan loo baahan yahay meelaha makhatirta iyo xiliyada ay galayaan iyo taksiyada ay raacayaan iyo bikibikida ay raacayaan iyo waxyaalahaas oo dhan waa dayac gabdhaheenu ay ku jiraan oo ay adag tahay in laga karo waan arrin wacyi gali badan u baahan wadanka waa la gaajaysan yahay وانا halis waay waxa kamida qodobada loo baahan yahay in la qaato markay xaaladahan oo kala soo baxaan in qayb laga noqdo sidii loola dagaalami lahaa shabakaadka noocaas oo kala ah ee dadka dhibaatada u geysanaya wax afduubay madax furashada weydiisanaya ama dadka balaynay sidii xididada loogu seebi lahaa sababtu wax weeye haddii aan qayb laga noqonin oo ama wargelinta ama fadeexayntooda ama dadka in laga wacyi geliyo ama jihooyinka ku shaqo leh in warkooda loo gudbiyo markii la arko haddaan la sameeynin waa daad wixii waa kordhaya berina wax weeye adigu ku saameynaya adigu ku soo gaaraya marka dambe waa daad socdo waay wixii marka waxay u baadan tahay bulshadu inay yeerato wacyi amniyaho waxyaalaha noocaas oo kala ah kaliya inaan lagu halaynin ani ma khusayse hadiiba aad muxuu ahay wax ka ogaatay inaan qayb ka noqono la dagaalankooda iyo tirtiridooda waxa laga yaabaa mujtamac muslimeenu nahay inay inaga dhadhacsan tahay muxuu ahay waxyaalaha noocaas oo kale ah in madaxda iyo dawladda iyo lagala tacaawuno waxa noocaas baabiintiisu in ayba diinteen halis gelinayso saxna ma arinta iyada amaanku muslimka iyo gaalkaba waa la wada leeyahay waana loo wada baahan yahay sidaan hadda ka soo hadal maadaama ay sidaas tahay cidii dhibaato u geysanayso waa in si wada jira looga hortago waa nabigeennuna salawaatu rabbi wa salaamu calayhi xilliyadii uusan awood lahayn bal intaan loo waxyooninoo ka hor nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu ka qayb galay shir ay adeeradii isugu yimaadeen beelihii maka deganaa ay isugu yimaadeen oo xilful mutayyibin la dhihi jiray ayuu nabigu ka qayb galay odayaashii gaalada isu yimid odayaashii markay isu yimaadeen waxaa laga tashanay oo laga wada hadlayay shirka isaga ah dadka laga gardaran yahay in loo hiiliyo dadka tabarta daran in loo hiiliyo inaan magaalada maka cidna lagu dulmiyin yaa heshiiska gaaraya odayaashii gaalada ahaa ee qabaa'ish nabigu shirka uu ka qayb galay isagoo dhalinyaro ah
intaan loo waxyoonin yuu ka qayb galay adeeradii buu la socday nebigu sal alla alay wasalam markii loo waxyooday kadib wuxuu leeyahay famaa uxibu ana lii xumura nacam wainii ankuhuhu ballankii waagaa odayaasha gaaladii ay galeen hadda inaan jebiyo oo xoolo qaaliya ku bedasho ma jecli buu nebigu sal alla alay wasalam bimacnaa wax weeyaan lama fiirinayo shaygani maadaama uu maslaxo sharciga xaqiijinayo waxaa la fiirinayaa masaalixda uu xaqiijinayaa la fiirinayaa laakiin yaa fulinaya lama fiiriyo ma garat yaa dejiyey oo gaadhay lama fiiriyo laakiin maslaxo sharciyuu xaqiijinaya amnigeedu u baahantuu xaqiijinaya waa inaad marka qayb ka noqoto waa sidii loo adu ilaalin lahay ibnu lqayim caleyh raxmat ullah kitaabkiisa zaadulmacaadka qisadii xadiiatu waxaan u jeeda xadiid sulx alxudaybiya heshiiskii xudaybiya nebigu sal alla alay wasalam uu la galay quraysh sanadkii 6aad ee hijriga waa tii nebiga sal alla alay wasalam siduu u socday markuu magaalada maka kor tegay isagoo cumro u socda hashiisii ay fadhiisatay socon weyday markay hashii socon weyday oo la canaantay oo si walba la yeelay oo kici weyday horey u socon weyday ayaa dadkii waxay yidhaahdeen oo inta si kasta loo canaantay kici weyday ayaa waxay yidhaahdeen khala'ati alqaswa hashii nebigu sal alla alay wasalam way daashay qolaada waxaa la yidhahdaa neefku markuu intuu iska fadhiisto uu muxuu ahay kici kari waayo socon kari waayo markaasaa nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yihi maa khala'ati alqaswa wamaa daaka laha bikhuluq buu nebigu sal alla alay wasalam mana ayna daalin mana aynan fadhiisanine dabeecadna umaba ah inay daashee walaakin xabasaha xaabisulfiil buu nebigu sal alla alay wasalam laakiin allihii maroodiga xaramka ka qabtay ayaa iyadana celiyey oo qabtay buu nebigu sal alla alay wasalam markaasaa rasuulku wuxu uhi sal alla alay wasalam waladii nafsii biyadihi laa yas'aluunii khudatan yucadimuuna fiiha xurumaati illaah ilaa acطaytuhum iyaaha ilaahayga naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay nimankaa qureysheedee gaalada ah tilaabo kastoo i weydiistaan ilaahay beydkiisana ay ku weyneeynayaan waan ka yeeli buuri wax kastooy maanta i hor keenaan oo beydkaa ilaahayna weyneyni oo qorsho soo jeediyaan waan ka aqbali buu nebigu sal alla alay wasalam intaa markuu nebigu go-aankeeda qaatay kuna dhawaaqay uma zajaraha fawahabat hashii kici lahayd waa la canaanto way boodayba kadib nebigu dhinac buu u leexday meeshii buu degay oo meesha wadahadalladu ka dhaceen qaybta heshiiska xudaybiya kaga soo aroortay qisada xudaybiya ibnulqayim caleyh raxmat ullah faa'iidooyinkuu ka bixiyey waxaa ka mid a waad u noqon kartaan zaadulmacaadka wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanayaa gaalada iyo munaafiqiinta hadday wax shareecadu ay amartay ama ogolaatay ay fulinayaan waa lagala tacaawuni karaa waa lagala tacaawuni karaya gaar ahaan markay muslimiintu ayna tabar lahayn oo awood ayagu waxyaalaha ay ku fulayaan aysan lahayn ciddii fulinaysa oo xaqiijinaysa inay ku garab siiyaan waa waajib markaa sharciya waay leanna waa maslaxadoodii waay saas daraaddeed ujeeddadu wax weeyaan in aanaan noqonin muxuu ahay mushkiladu inay nagu dul socoto annagana muxuu ahay aan ka noqonno mutafarijiin aynaan ka noqonin waxaa kaleeto iyadana qodob kale ah qodobka afraad ah in aada iyo aada laysaga ilaaliyo waxa la yidhaahdo madax furasho in la bixiyo haddaybana qabsato ama hadday ku qabsatoba madax furashaha bixina way adag tahay qodobkaasi oo ilmahaagiioo la haysto ama islaantaadiioo la haysto madax furashaha ka bixinin waa war adag soo maa go-aan adag laakiin waxaad ogaataan maalinka ay dhacdo in madax furasho la qaato oo shabakadihii dhibaatada wade aynu madax furasho siino kulligeen waxaynu halis ugu jirnaa in layna afduubto irid waxaynu isku furnay aan xidhmaynin innagoo dhanna dahab baan wada noqonaynaa haddayse mid dhacday ku hungoobaan oy mid dhacday ku hungoobaan oy tu dhacday ku hungoobaan waa soo xidhmaysaa ilan ujeeddii loo socdayba intaas ay soo maaha haddii wax lagu waayo barnaamijku waa soo xidhmaya
laakiin maalinka aan la orodno siino madax furasho siino oo waxay rabeen aynu siino arintuna way sii cuslaan lana waayi maayo lamaha amnigu shabakaadkan ma baabi'in karaan way jirayaan weligoodna way soo jireen laakiin waxaa dhacaysa waa in muxuu ahaayey aan anaga qaadano ilaahayna u tala saarano wixii dadaal iyo jidadkii kale inoo furanna aan marno laakiin marnaba aynu aad uga taxadarno wax la yiraahdo madax furasho inaan siino shabakadahaasi afduubka sameynay laana wax weeye halistay sii kordhinaysa iyo khatartay inuu kordhinaysa qodobka shanaadi wuxuu yahay waxa shaki ku jirin shabakadaha waxa ku jira dad Soomaali ah wiilal iyo gabdho ayaa qayb ka ah shabakadahaas waadi xaqiiqo bal ayaga waxay u yihiin kuwa dadka tusa dadkan kale inama yaqaanaan laakiin ruuxa jeeb kale ee jeebkiisu waxoogaa yaro kuusan yahay ee ilmihiisa haddii la afduubo waxoogaa laga daadsan karo yaa yaqaan Soomaali baa taqaan shabakadahaasi marka xiriir waxaa jira Soomaali baa la shaqeysa barnaamijkana qayb ka ah haddana ma horaan bay u jiri jirtay hadda goor haddaan qiso idinka warramo 20 sano ku dhowaad ka hor ayaa anaga waxaana dhacday aniga nin kale gabadh Soomaali oo reer Wajeer ah yaa naga lug meersatay marka aniga nin kale oo kala casada baan guri baan kireysan rabnay oo aan u rabnay lodge ahaan baan u rabnay hotel ahaan inaan u kireysan marka niman baa intay gurigii documenti beenbeena u samaysteen ayaa wax guriga naga iskale documenti beenbeena way samaysteen kibaandooyin waafaqsan documentiga oo iyaguna feegana way soo samaysteen lawyer feegana toonkay ku samaysteen shabakadii baan naga gal shabakada marka waxa hormuud oo anaga kalsooni galiyay gabadh Soomaali ah oo say u labisantay hadaad aragto waliga aadan dhahayn ba tana balaayadan ka shaqeysaba ayaa la socota marka anaga waxa naga dhaadhacday masaakiin baa iska ahayne gabadh Soomaaliyeed baa intay idin shir qoosho bayniman idin shir qooli marnaba naguma soo dhacay bas heshiiskii waa la saxiixayaa baa la yiri lacagta soo qaada lawyer-ki toonkana lagu ballamiyay markaan meeshii tagnay lacagtiina aan wadno ayaa la heshiis baa la haye lacagtiina laga qaaday baa dhinacyaha laga dusay annagoo meel banaan taageer baan isarag ami galabnimo way qor casar gaabada waa Nairobi markaas waxaan bilownay inaan lafaha naga la fakado war lacag iyo xoolo ba jiraan bal la feerayaa leena diline in carrisi arban gal barnaamijka waxa ka shaqeysay oo isku xidhay gabadh Soomaali ah waa 20 sano taqriiban ka hor way ku dhowday marka gabdho Soomaaliyeed baa qayb ka ah wiilal Soomaaliyeed baa qayb ka ah barnaamijyadan shabakadahan qayb ka ah waxaan ula jeedaa marka macluumaadka idin siinaya Soomaali way hagu kalsoonaanina ilaa moogtahay Soomaalina waa isaga kalsoonaanaba oo ka gabadha quruxda badan naga isaga kalsoonida iska siinayba labiskeeda iyo quruxda Soomaali weeye iyo waxana isaga kalsoonaan marka tawaamid midda labaad weeye dadka shabakadaha ku jira ee Soomaalida ah ee aynu naqaano iyagana waa inaan qarinin oo inaan hoosta gashanin laana Soomaalinimadooda waxba inugu biirin mayso ehelnimadooduna waxba inugu biirin mayso Soomaa waa mufsidiin mujrimiina waay waxba marka ugu tari maayaan hadii laakiin hoosta aan gashano oo aan qarsanno inaga inugu soo noqoni nabigana xadiiskiisi waa kii ahaa sahih muslimka ku yaalay la'ana Allahu man awa muhdithan ruux wa fasaadinayo wax kharibay ninka hoosta gashaday oo gadaal marsaday lacnad Ilaahay ku dhacay waad ogeydeen wixii naga qabsaday muxuu ahay dhalinyaradii super powerka halkan isli soo garan maysaan wixii inaga qabsaday waad ogeydeen waxaana wax kala ma ahay wiilal yar oo dhalinyaro ahaayeen oo wax laga qaban kare
laakiin waalidiintii dhalay iyo qaraabadoodii baaba laga hoos bixin kari waayay Islii Business Community culimadii masaajida ka hadla si kasta hal la yeelo dawladda ha loo gudbiyo hal la qabto hal la xidhxidho markii la xidhxidho la qabto qabiilkii baa u gurman odayaashii baa ordi aabihii iyo qaraabadii baa iskaashan dhaqaalaha la ururin 1 milyan baa la geynayaa maxkamadda ama la geynayaa stationka waa la soo deynayaaba maalinta xigtana meeshii buu taagan yahay dad ku dilay oo mindidii iyo tooridii la taagan yahay odaygii dhalay ee islaantii dhashay ma aqaano ma waxaan uu soo dhacay wax ka qayb ka leeyihiin oo la qaybsanayaan garan mayso mise waalidnimo u baahaysa meeshii uu ka miisaya si walba hadii la yiri waa la kari waayo war caruurtan laba mid yeela ama idinku wax ka qabto oo mushkiladan ka dhex saara masaafuriya si uu yeela ama xabsiga ha ku tarbiya qaateena xabsiga way ku hagaagi oo bini aadanka halaaway baa xabsiyada ku hagaagay xabsiga u daayay dhibaatadooda si looga badbaado nag waa la kari waalidku waxay soo istaageen ilmahayga waa la masabidayaa dhibaato ma qababa markii dambe waa ka kooxuhu ku soo baxeen oo markii qaar meesha lagu laayay kala carar baa ka dhacday muqdisho ka tuur hargeysa ka tuur boosaaso ka tuur kala eri marka waa khalad dadka khariban ee wax kharibaya inaga dhashay inaan hoosta gashano ama gadaal marsano ama macluumaadka ku saabsan wax ka qabashadooda aynu qarqarsanana waa qalad ilaynu iska aaminana waa qalad labada arimoodna iyadana waa arin u baahan baraarujin u baahano mushkilada wax ka qabashadeeda ay qayb ka tahay waxaan ku soo gabagabeynayaa oo kamida asbaabta يعني وحوي مدن runtii inaan tilmaamo ilaa iyo hadda dhacdooyinka afduubka ah waa wax kooban wax weyn ma laakiin waa la buunbuuninta iyo ka badbadintaasina waxay leedahay cabsi gelin badan bay abuuraysaa khalkhal bay abuurtaa heer waxay gaadhay in la yiraahdo caruurtii iskuulada laga reebo dugsiyada laga reebo balaaya dhacday muxuu ahay waalidiintii yiraahdo caruurtii waa laga afduubahaya waa dhacdooyin kooban waay marka irjaafka iyo ka badbadinta masaa'isha amniga ku saabsan ma fiicna oo nolosha inay khalkhal gasho ma aha ayadoo la taxadarayo haddana maca dalika waxyana waa dhacdooyin kooban waay ilaa heer waxa la gaadhay xataa caruurta qaar kamid oo intay waalidkood isku yara xanaaqeen malaha maalmo yara dhuuntay oo xaafada ka yara dhuuntay ka xanaaqay in la yiraahdo waa la afduubay marka xoga kiisaska qiyaasta ay dhan yihiin oo bilmunaasaba intayna hadda inaga ina soo gaareen Kenyaanka kale marka hadda la socoto wadanka akhbaartiisa Kenyaanka kale aad ugu badanta dhacdooyinkaasi waa marka laga warramayo wada yaabaysa marka qiyaasta ay yihiin wax weyn wali ma ah mujtamacu sidoo badan yahay dalku u balaaran yahay iyo waxyaalaha hadda laga sheekaynayo kees iyo laba kees saddex kees iyo wax hadda khalkhal nolosha la geliyo ma ahe irjaaf iyo cabsi badan iyo ruucb iyo argagax iyo taana insha Allah taala laga taxadaro cabsida yaan zaa'id laga dhigino yaan laga badbadinin qiyaasteeda ha lagu koobo insha Allah taala wixii taxadarana hal la qaato biidnillaahi tabaaraka wa taala intaas ayaan insha Allah taala kalimadii ku soo gabagabeynaya biidnillaahi taala ahayd afduubka asbaabtiisa iyo maxaa xal noqon karaya ilaahay baan weydiisanaynaa tabaaraka wa taala wixii naga khaldamay inuu insha Allah taala noo dhaafo sababkana ajirkiisana siiyo habeydama insha Allah taala waxaan u balansanahay kelimo kale oo ku saabsan gudniinka gabdhaha waa xiisad Puntland ka taagan oo doonaya inaan wax ka idhaahdo insha Allah taala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh